نكليرا هيلر وحليري هيلر وأدوين ديا أو دقنص هيلر دقالي هنمك لحمة أنا مرة لحظات كحبي ويدين جرين نك أدوين قفك أدوين أو دقنص واك هيلر مركز هو يري نك ذلكي صار الله عي وكلمه مركانوا على فايزن وحوي لا قرتها قروين dad walaal maxuu ahaayeen mas'uuliyadda ay hayaan markay uga hadlaan hanaqoon qof iska soo taagan qofka Soomaaliga bas ina fuuq rabe waxaan jecelnahay danaha guud ee ka wada dhaxeeya gobolada dalka iyo guud ahaan Soomaaliya ka dhaxeeya inaad ka shaqeysid hadii ma aqaan anigu maalintii hadalka xunbas in la sheego la rabo Faysal la soo kacinay anigu ma garanayo taas waa garan lahay Faysal oo war fiican oo Soomaali ay ku faraxda sheegay anigu ilaa ay hadda ma arkin saaxiibkay mar rabo inaan ku fogaano laakiin waxaan doonayaa in aan u istaxay asaga ruuxiis oo aan iraado Berbera waa dhul Soomaaliyeed DB World waa كمبنيغنا وحاوي أساقا انتريس كيس أيو فيرسدا وقناعس لكن هداني إلا حد وحد مودا إن أرمها سومالي أي كوحد قدبين إنا يجرتك رالي أهان شو الدولة دوضا حقيدا إلا كمبني سومالي هندي ودن كلا اسكو حد قدبو waxaa la rabaa inay yiraahdaan waad dheereynaysiin isgaabay yiraahdo waa Soomaali marka raalka ahaansho waan dareemeynaa qaldaad badan oo ay galayeen waa dareemeynaa hadalka muxuu ahay ninka oo Germanka waa ee ku hadlayo dalka Somaliland iyo Soomaaliya oo Soomaaliya kula qaaday gobolada waqooyi as leeyahay 28 sano ka hor ay xorriyad qaateen warkaas waa war kambani anigu kulay inta aan ka ogahay dawlad rasmi ah ugu hadasho tiray wadankaas Soomaaliya waa kala jarnay ma aan arkin laakiin taas ruuxeeda waa qalad ah dalkiisa inay ku qabsadaan ay hadii ay dalkiisa ku qabsan waayeen anaga dawladdan u haysanaa waayo meeshan safiir ayaa u joogo cilaaqaad baa naga dhaxeeyay dalkaas wax dhibaato ah oo naga dhaxayso ma laha waxaan isku jirnaa jaamacadda Arab adduun sharciga ka jiro shuruucdaas ay tahay in loo maro si tilaabo cad looga qaado heshiiska ay gobolada waqooyi iyaga kala saxiixdeen runtii heshiis oo runtii dhaqan galay inasna waa la ogyahay haddii hadda maanta ay daaro qurux badan ka dhisaan oo dekadaas ay dhisaan oo intii yaro hadda dhibaatada Soomaaliya ay ka jirto inay ka faa'iideystaan ay isku dayaan ayaga hanti badan ugu baxaysa waxay ku xiran tahay ciidanka difaaca badda oo la dhiso oo badeena xandaafkiisa tago waa iska wada joogsanay maraakiib ku soo xirnaysan day jiran guri qurux badan iyo dekad qurux badan oo dhistay anaga wax ay ku kordhinayso malaha marka kamiliga ana waxaan leeyahay asna yuus isqasaarin annagana yuusan kala qoqobin oo maanta hantida uu Ilaahay siiyay shakhsiga iskale kamiligaas yeysan noqon kuwa Soomaaliya isku dhibaateeyo waayo Soomaaliya waa qaran jira shakhsi iyo kambani toona waxba kama qaadi karo duruufta نول مربى يسوى مرتا إماراتك وحنا حزوستا إذا أفجوا بيركو تال قدرت الله قاضي أيان حزوستا ما أنت هذا إسليه سومالي والتورير تاعي واتكفى إذا سنكرتين أم كمبنيالك إنه كفى إذا سنكران ده إسليهين سومالي دي هرما هدوا يسوى قاضي دولة حوق لهانهاي إن شاء الله لبعتها أرجح سدا إكوهاي سدلك وحكبضا أنا عالم كورنا إن لو ذاقان وحكبضا أنا قاعد أندريمين ملها رنتي واجرتها لبعته واي هذين لبعت جرين ما بيتكتين بربرمه سوتوا جودين حلير جد بالير جودين إمجويسين هذي جود نالانتي كود دامنه مر هذي dadkii goboladaas joogay ay leeyihiin muxuu ahaay dadkii
khayraadkayna kaaliga qaata ee daldasha ee aragti muxuu ahay fog ayna jirin dhibaato waaye sida walaalkeen saaxiibkeen Faysal Cali Waraabo kale in saacadan cunsurinimo Soomaali dhexdeeda laga sameeyo in khayraadkiisii la daldalanayo oo yiraahdo khayraadkayna la daldashay maxaa looga hadlayaa waxyaabaha noocaas waxyaabo oo xal ma waxa jiray hadda ka hor nuclear Hitler waxa leeyahay Hitler oo adduunyada ugu doqonsan Hitler dagaalyahan nimanka laxmaan marar dhax dadka waxbay weydiin jireen ninka adduunyada qofka adduunyada ugu doqonsan waa ka helay markaas uu yiri ninka dalkiisa la dhacay u kalmay markaan waxaan leeyahay Faysal wuxuu iga gartay garawaynin dad walaalaena muxuu ahay mas'uuliyadda ay hayaan markay uga hadlaan hanoqon qof iska soo taagan qofka Soomaaliga bas ina fuuq rabe waxaan jecelnahay danaha guud ee ka wada dhaxeeya ee gobolada dalka iyo guud ahaan Soomaaliya ka dhaxeeya inaad ka shaqeysid hadii ma aqaan anigu maalintii hadalka xunbas in la sheego la rabo Faysal la soo kacinay anigu ma garanayo taas waa garan lahay Faysal oo war fiican oo Soomaali ay ku faraxda sheegay anigu ilaa ay hadda ma arkin saaxiibkay mar rabo inaan ku fogaano laakiin waxaan doonayaa in aan u istaxay asaga ruuxiis oo aan iraado Berbera waa dhul Soomaaliyeed Ethiopia shirka ma qaadanayso waayo Ethiopia dhul ay leedahay biyaha webiga ee ka yimaada meesha ka yimaada xiran Ethiopia anaga daalac uma raacano maxaad u yeelay ma dhahay adagana waxaad leedahay Berbera 19 laga siiyo dadka gobolada waqooyiga 30 laga siiyo taas ninka taageeraya anigu ma garanayo meel u socdo iyo waxa muxuu ahay oo dan u ark oo hankiisa iyo heerka uu yahay iyo hadda waa nin siyaasiya oo waliba Faysal Cali Waraabo engineer oo muxuu ahay laga Soomaaliyeysano ahay laakiin hadda ma garanayo waxa runtii ku dhacay inta uu dhaafi maayo waxa aan rabaa oo kaliya waxa weey dadka Soomaaliya waxa hadlaya Imaaraadka magaca Imaaraad ay ku wadihiin waa company Imaaraadka ka tirsan inaan loo fahmin in dawladii Imaaraadka iyo Soomaaliya ay isku dhaceen hadii dhinac loo eego kambaniyashooda naga xakamaysta inaan dhahno dawladda federaalka ayaa xaq u leh baarlamaanka hadii la furo arintaas xildhibaano badan ayaan isku balansanay in arintaas wax laga qabto iyadoo aan wax loo dhimayn cilaaqaadka u dhaxeeya Soomaaliya iyo dalka United Arab Emirates iyadoo waxba loo dhimayn ayaan rabnaa in muxuu ahay si saliim aan arintaas ku wajahno safira inta u joogo waa la wadaagayna waxa ay ka qabaan walow ayna ilaa hadda aanan aragan ayagoo leh muxuu ahay waxa waa company hadalka ka soo yeeri ma aha hadalka afka xukuumadda dadku hadlay ay sheegeen ma leeyahay aanan arag wali haddana annaga waxaan u qaadanaynaa inuu company dheereeyo oo rabo in khayraad dadeed uu muxuu ahay ku naaxa uu rabo waan iska qabanaynaa tan cilaaqaadka sida uu si wanaagsanaan karo waan soo dhaweynaynaa dalka Imaaraadka muddo badan baan aan cilaaqaad leheen dalalka aan si fiicanahay aan si dhownahay ayaan ka mid ahayn mana malaynaay in hadda dana company iyo interest iyaga ay leeyihiin Soomaaliya dabacsanaanta iyo muxuu ahay burburka ka muuqdo inay ugu faa'iideysanayaan hadii ay dhacdo waxay isla qabaan Imaaraadka ay Imaaraad anagu dalan leenahay igana dalay leeyihiin dekadan leenahay dekaday leeyihiin baday leeyihiin badan leenahay usman baahnaan doon xadna malihi amaanka inaan si loo sugto wanaqa waxa ay tagaysaa in aan safaaradaha kala qaadan waliba arintaas ayada baarlamaanka Soomaaliyeed kama gaban doono hadii Imaaraadka in si aqliya saliimiin ay uga hadlaan ay yiraahdeen waxa magac company waay magac dawladda ma ay yiraahdeen walaalnimadii iyo wanaagga waa u hayna laakiin hadii ay sidii uga aamuseen ay uga aamusaan runtii dadka Soomaaliyeed iyo madaxdoodaba aragti kale ay ka qaadanaysaa dalkaas iyada walaalaha